nin lagu magacaabo Kurachaarso oo ah odayaasha Booranta Oromada ayaa BBC-da laanta Famxaariga u sheegay in magaalada Mooyaale aysan nabadi ka dhici doonin inta calanka Soomaali leedahay uu ka taagan yahay magaalada. ninkan odayga ah ayaa sheegay in aftidii 1997 ay ahayd dhulboob cad oo lagula kacay qoomiyadda Oromada isla markaasna aysan marnaba suurtagal ahayn in Mooyaale nabad lagu leedo inta Soomaali ku hamiyeyso in Mooyaale noqoto caasimadda waxay ugu yeeraan Daawasoon waa sidoo hadalka u dhigay. waxa uu intaasi raaciyay in sida kaliya ee xal nabadeed ku imaan kara ay tahay in Mooyaale oo mid ah lagu soo celiyo gacanta Oromada. dhankiisa Ali Taache oo ah gudoomiyaha OBDO ee Mooyaale ayaa sheegay in Mooyaale ay weerar ku hayaan Al-Shabaab iyo qaybo kamid ah ciidamada militariga oo garab ka helaya liyu booliiska deegaanka Soomaalida. dhanka kale Suldaan Maxamed Xasan waxa uu sheegay in colaadda Mooyaale ka jirta ay tahay mid siyaasaysan isla markaasna ay qoomiyadda Oromadu si cad u diideen wada hadaladii Mooyaale Diridhaba iyo Addis Ababa dawladda dhaxana ay markhaati ka tahay. wixii ka dhacay Mooyaale 97 inuu dhulboob cad ahaa shaki kuma jiro, laakiin ma og tahay cidda dhulka laga boobay ee weli dhulkeedii la haysto waa Soomaalida oo Mooyaalena wixii maalinta ka horeeyay Oromo dool ah ay timid. Nairobi dhumnee firagu nuqar wanni dhumnee fi waan aadaa jilaati eebbiqayeedhani qaydi galumaddaarri jaasoo jiloo qallaata jaasi kun saaf qubata wasaaquuti jaasanaa qayee eebbisu dhumu uranni kutan qabu duuba bagadaa tokkoon bula aada tokkoon bula haram jiruulleen abbaan gadaa nauma booran kan duun fulanni jechuu haa nagaa fuudhedhe qaye bisee irra baye naano tanaas Nairobi illee dhufe duraan hin dhufan wanni hin dhumnee fi seerii aadaa kanam daangessullee hin jiru seer daawweedhan seer sullee amma immoo dhiyoo tana gada dabarti gada guyyoo gobbaa seer sun kaasan seer daawwe sun hayila nagaa fuunee turre sila warra balafaa prezidaantii keenyaallee uruu dubbisuu barbaanne garuus dubbisuu fi qoommiin arganne raayila garree duuba waan nagaa biyya Itoophiyaaf keenyaan tokko misoom waliin qabdi nageen waliin qabdi waan biitanaallee guddootti dhaaman waan immoo booranaallee booranni kutan qabu kama Itoophiyaa jiru darmaallee jira aada tokkoon bula abbaa gadaa tokkoon bula talle dhaamanne booran kalle nuu jabeessi Oromoon mukee qubatte jirtullee qumnu qabaadhaa nuu jabeessaa jenne tanum wal dubbanne akkasuma siyallootti gos walitti qabne la dubbanne wanni nuti dubbanne waan tokkummaa gostanaati waan nagaa gostanaati waan aadaa gostanaallee la dubbanne warri gamkan jira aadaa irraa fagoo jira aadatallee dagatee jira aadatallee dagatee ircaalaan gara amaanuutii jijjiiramee jira aadaan nafa abbaan jabeeffata dhalootii aadaa hin qabne tisse garboota yoo afaan kan kee hin jirre yoo aadaan tattee hin jirre eenyummaan kan kee beekamtu garboota taate aadaa nan bira uffatta kanaaf aadaa tattee takaleessaa sun hin dedinaa jabeessaa waan jedha achillee dubbansi allootti nu garri waliin daangaan qabu garri waliin daangeessu warri kun warruma Boorana kee qubatuu deebi'ee lafa Boorana falme warri kun yeroo eegii dargiin dheette mootummaan yaada dhufe mootummaan kun dhufe Booranadhanii laftan cufirraa haasanii safartan guuranii itti qubsiisan eessa guuran Jijjigaa fuudhanii achi qubsiisan keenya keessa waldaa guuranii achi qubsiisan Wajeerii fuudhanii achi qubsiisan eessaa qubsiisan Mooyyaleetti qubsiisanii Goofalayeetti qubsiisan Uudatiitti qubsiisan mootummaalleen lafum
boorana tawarreen qubate jirtaani baandiraa tolchaniifam alaabaa dhaabaniif mooyyal keessin dhaaban uudataana tolchan laftee ta boorana mootummaa kanaa gurguras eegalte kanaaf dhimma mootummaa wata namna waan ta'eefi haadhuma kooftee waan jiisuun beeka mootummaan eeguu qabu baandiraa lafa Oromoo irraa kaasuu qabu ak mooyyal baandiraa lafa keessa jinagaan dhufuu hin danda'u ak daawwa zooniin nurraan ka'in nageenyi dhufuu hin danda'u. labadan maalmood xaaladdu waa yara degan tahay toddobaadka danbu dagaal ka socday mooyaane dagaal xoog leh oo lagu hoostay magaalada Nairobi ka socday marka labadan maalmood laakiin xaaladdu waa yara degtay hadda alxamdulilah shalay iyo maanta xaaladdu way degtay. waan gartay marka maxaa dejiyay xaaladda iyadoo wararka aanu maqlaynayno helaynaana ay tahay in ciidamada military ay goobta yimaadeen ma ciidamadaasa gacanta ku qabtay mise sideeday xaaladdu u degtay? xaaladdu dagaalkii wuxuu dagaal xoog loo socdaa ayaa waxaa dhinaca federaalka looga yimid laba janan oo ka socday qeybtan koonfureed qeybtan koonfureed ka socda ayaa sabana looga soo diray oo ka socda ay wataan labadii janan markaa yimaadeen waxaa ay wateen amar buuxa oo labada deegaan mustafa maxamed cumar iyo lama iyo dowladda federaalka ay isla gaareen bay wataan oo go-aan ah marka go-aankii ay keeneen amar ayba ka socda arrintaasa xaaladda dejisay. waan gartay marka ma jananada unbaa idii yimi mise ciidama iyaguna soo gaadhay goobta oo yimi? ciidamada marka horeyba way joogeen 15 bilood dagaalka socday way joogeen kuwo cusub oo yimidna way jiraan laakiin maadaama xabad joojin degdega iyo tallaabo adag ay maaragtay amar lagu soo siiyey inay militariga ku dhaqaaqi karaan waa waxaanu sugaynay oo aanu weynay weeye marka arrinta ay keeneen ciidankii hore u joogay iyo kuwa cusubna way jiraan oo arrinta dejisay amar ayna ka socday. waan gartay marka hadda ciidamada halkay ku sugan yihiin ma dadkii bay kala dhex galeen mise waxa weeyaan amarkii marka la maqlay unbay xaaladdu istaagtay oo ay degtay? ciidamada markay soo galeen labada jano marka magaalada soo galeen baa waxay la kulmeen maamulkii Oromiya iyo odayaashoodii haddana waxay la kulmeen maamulkii Soomaalida iyo odayaashooda la kulmeen waxay wadaan kow in xabad joojinta la sameeyo labo in wixii maleeshiyaadka magaalada ku dagaalamayay kilomitr magaalada laga fogeeyo in meelaha ay muranku ka taagan yahay tuulooyinka muranku ka taagan yahay aanan lagu suri karin deegaanka Soomaalidu leeyahay ama deegaanka Oromadu leedahay in wixii qarbuga keeni karaa cidii amarkaa diidana ay maaragtay tallaabo adig ka qaadi doonaan amarkii markuu yimid ayaa maaragtay arrintu soo degtay arrintaas waa kale dowlada maalmood. waan gartay marka qodobadan amarka ah ma waxay shaaciyeen oo dee si guud bay bulshada ugu sheegeen mise dhinacyada la kulmeen bay u sheegeen se goormay sheegeen? labada dhinac markay la kulmeen deegaankeena iyo deegaanka Oromiya si caadi bay ugu sheegeen inay awaamirta wataan labada deegaan iyo xaqiiqa ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandhida cidii amarka diidana ay tallaabo ka qaadi doonaan ayay sheegeen markaan su-aalo weydiinana waxay nagu jawaabeen wixii dhinaca siyaasadda ku saabsan ee muranka dhulka ku saabsan isayhaynkii ku saabsan in ay u taalo labada deegaan laakiin iyagu ay leeyihiin in ay magaalada dejiyaan abadejintii la sameeyo magaaladii ay caadi kusoo noqoto kadibna labada deegaan federaalka laga imaan doono intaa unbay noo sheegeen intii ay sheegeenna de annagu Soomaali ahaan awaamiirtii waanu qaadanay maadaama deegaankeenu iyo deegaan dowladda diyaar u ah waan gartay amarkii madaxweynehena qaadanay marka xagooda laakiin weli ka jira kulley waxay noqon doonaan waan arki doonaa alaa kulli xaal xaaladda way soo degtay alxamdulilah labada maalmood xabaduma dhaahin. waan gartay magaalada oo kale ama de deegaanka oo kale muddooyinka ugu dambeeyay dee dagaalaha ka dhacayay oo dee soo jiitamay oo muddada soo socday in saamayn intee leeg bay bulshada iyo deegaanka ku yeesheen dagaaladaasi si xaaladda hadda ku sugan yihiin haddaad noo sawirto maxay tahay? xaalad culus xaalad su-aal fiican weeye dagaaladan sana noqday oo hal sana iyo barka jirsaday iyo dagaaladan dambe ee toddobaadka dhan socday magaalada deegaanku waxay geysteen kafaaro naf iyo maalba lees baraka dhimasho iyo dadkoo aad u maaragtay raashinkii dhulka oga waayay marka burbur dan bay geysteen dhulkiina la gubay magaalada waa la gubay magaaladu waa magaalo hadda sidii hore bilicda muuqata maaha dadkuna way ka barkaceen dhinaca
kenya waxaa loogu barakacay xagga iyo gobolka xarunta gobolka iyo degmooyinka mubaarak iyo qalab baa loo barakacay iyaguna waxay toogeen gudaha beeraha dowlad iyo kenya u barakaceen marka khasaare badan oo fawla ayaa magaalada gaaray deegaanka